bannaanbax aad u weyn oo lagu taageerayo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Bannaanbaxaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo wasiiro, xildhibaano, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa. Waxay meesha ka jeediyeen khudbado dhowr ah ay ballanqaad horay ugu sameeyeen shacabka ku dhaqan Soomaaliya, qaasatan kuwada Muqdisho. Ay ballanqaadyadooda waxa ay ka qabteen ayaa maanta lagu soo bandhigayay magaalada Muqdisho. ugu horeen waxaa ka hadlay meeshaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo asagana sheegay wixii u qabsoomay boqolkii biri ay dhisneed xukuumaddiisa. waa kan asaga oo ka hadlay ballanqaadi oo visionkayga ama aragtideeda foga ummadda Soomaaliyeed inaan rajada ku soo celino. rajada ummadda Soomaaliyeed ee doonayso waa nabad iyo nolol. nabad iyo nolol weeye. nabad iyo nolol haddaysan jirin ummad ma jirayso. waxaana bays u ah nabad iyo nolol koob waa idiin sheegay danta shakhsiga inaga guuro oo loo guuro dan guud. danta guud waxay tahay oo aniga iga bilaabatay oo idinku aad igu taageerteen inaan idin keeno saan idin ballanqaaday ra'iisul wasaare iga wanaagsan. ra'iisul wasaarahana ballantii waa fuliyey wuxuu keenay wasiiro ka wanaagsan. wasiirada waxaa looga fadhiyaa bacdama 60 bari ay joogaan inay keenaan shaqaale ka wanaagsan. ballantaas midin fuliyey ballantaas kuwa ku xigana aan idiin sheego aan idin fulinay. ammaanada kow waxay ka ahayd wixii aan ballan qaaday ammaanada. ummadda Soomaaliyeed waa kala shakisay waana kala fogaaday. waxaa la isku diray qabiil iyo qabyaalad iyo xagjirnimo. ammaanadu waxay tahay wixii aad noo dhiibateen inaan si ay tahay idinkugu hayno oo aan isku kiin hayno oo wada jir iyo midnimo idinkugu shaqayno. wixii aad noo dhiibateenna si fiican idinkuuma amulno oo aan la dagaalno musuqmaasuqa. aysan jirin shaksi keligiis qaar u naaxa oo aad kulli nolol wada heshaan oo nimcada ilaahayna siiyey khayraadka dadkaan leeyahay uu idinsoo wada gaaro. macquul ah mana aqbalayno waddankan barwaaqada ku jirta in wiil Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed ee gaajo ku seexdaan mana doonayno waana ka dagaalaynaa. waxaan ii sheegaynaa 6 bilood dagaalan nabad inay noqonayso insha Allah. waxaa kaloo ii sheegaynaa annagu waxaan u taagannahay ballan u qaadnay oo aan daar u marnay xasiloonida magaaladan yaan daar u marnay. xasiloonida macnaheedu waxay tahay magaaladan bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo sharafkeeda inay soo noqoto. inay la tartanto Kenya, Nairobi, inay la tartanto Addis Ababa, inay la tartanto caasimadaha adduunka. ma kuwa tartami karno iyadoo borono magaalada dhexdiisa ay marayaan oo qoydo culsi saaran yihiin oo shacabka lagu leynaayo kulama tartami karno. haddii dadweynow shacab weynow aad nagala shaqaysaan dowladda aad kala shaqaysaan cadaaladda aad nagala shaqaysaan amniga nagala shaqaysaan. maxaa yeelay markii magaaladan amni ay noqoto waxaa noo imaanaya maalgelin yaa imaanaysa. maxaa yeelay dalkaani waa dal khayraad badan. waa markii ugu horeysay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay soo bandhigaan wixii u qabsoomay boqolkii biri ay shaqaynaysay dowladda federaalka Soomaaliya. maxamed yaasiin mahdi maxamed qalfa Jubba Shabeelle News magaalada Jowhar.